madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa maanta tababar cadaado ugu soo xiray 400 oo askari oo ka mid noqonaya ciidamada booliiska dowlad goboleedka Galmudug. munaasabad ka dhacday garoonka kubadda cagta ayaa ciidamadu waxay ku soo bandhigeen gaartaka ciyaarkaas ay ku muujinayeen xirfadihii ay soo barteen 3 bil ee la soo dhaafay iyadoona goobta bilada lagu siiyay saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliya. gaashaanle sare Cabdicasiis Yuusuf Aadan Nagabadan taliyaha ciidamada booliiska dowlad goboleedka Galmudug ayaa ugu horeyntii ka hadlay munaasabada. Galmudug kamida oo walba indhihiisa ku arkay waxa ay barteen iyo waxa ay soo bandhigeen waxaan kale oo taariikhda xusaya dugsigan waxaa la furay gowdii bishii toddobaad reegaas Maxamed Sheekh Xasan Xamuud taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa dhankiisa sheegay in maamulka Galmudug iyo ciidamada booliiska uu ka dhaxeeyo iskaashi isla markaana ay sii wadi doonaan howlaha tababarada. maantana aadmo isbedelka taariikheed ee ku socda dhismaha maamulka dowlad goboleedka Galmudug waxaan rabnaa inaan halkaan aan ka cadeyno haddaan taliska booliiska Soomaaliyeed inaan maanta dhalinyaradan quruxda badan niyada badan u haysa inay dalkoodii iyo dadkoodii wax u qabtaan maanta tababarka halkaan loogu soo xiro dadaalkan dheeriga ah mudane madaxweyne wuxuu ku imaaday dadaal taliska booliiska Soomaaliyeed iyo maamulka Galmudug runtii oo ay weliba ka maqan yihiin ganacsatada waxaan rabnaa inay ganacsatada Galmudug ay qayb ka qaataan dadaalada lagu dhisaayo booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan booliiska maamul goboleedka Galmudug. waxaan rabaa inaan halkaan aan ku soo gabagabeeyo taliyaha aw qaybta Nagabadan laba neef oo geel loo qalab maanta ciidan. ugu dambeyn ayaa goobta waxaa ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed kaasti oo sheegay in ciidamadan tababarka soo qaatay ay ka qayb qaadan doonaan ammaanka deegaanada Galmudug. boolisku shaqadiisa waa inuu bulshada ka dhex shaqeeya waa inuu bulshada nabadiisa iyo sharaftiisa iyo wanaagiisa ay ka dhex muuqataa. boolisku aad iyo aad uga duwan yahay dadka kale waxaa la rabaa qofka Soomaaliga markuu arko askari boolisa inuu farxo ayaa la rabaa. waxaa ugu soo horeeya shaqada ay qaban doontaan waxaa u tihiin doorashooyinkii ayaan dhawaan geli doonaa qayb ka midna hadda waa bilaabnayba doorashooyinkaas ayada maadaama dad aad iyo aad u fara badan oo doorashooyinka heerka qaran daneynaya ay deegaanka Galmudug qaarna yimaadeen qaarna ku soo qulqulayaan nabadoodii iyo xasiloonidooda iyo guud ahaan nabad iyo xasiloonida guud ayaa waxaa loo baahan yahay inaad qayb libaaxda ka qaadataan. ugu dambeyntii ayaa ciidamada tababarka loo soo dhameeyay iyo ciidamada banda muusiga waxa ay socdaal ku soo mareen wadooyinka muhiimka ee magaalada Cadaado iyagoona gaartaka ciyaar ku sameeyay fagaaraha magaalada Cadaado waxaana daawanayay ciidamada socdaalkooda kumanaan qof oo ka kala yimid xaafadaha kala duwan ee Cadaado waana ciidanka ugu horeeyay oo dhoolatus noocan oo kaleeta ku sameeya bartamaha Cadaado. Maxamed Maxamuud Aadan TV-ga caalamiga Universal Cadaado.